Asalaamu calaykum said tihiin mii fiicantiin aan weydin wanaagsanahay galab wanaagsan waatana quruxleydiini yareyd waa soo labistay waxaan u socdaa shopping saddexdii cisho ugu dambeysayba suuqan wareegaya shopping baa raadinayay shoppingkii ciidkan u socday dharkii ciidan soo iibsanayay soo waa kaasa maanta ina yar baa iska dhigay oo waxaan xidhay maxaa la dhahay toobka gacmo gaabka waxaana u xidhay shaarka cad oo fulka weyn leh waxa waaye garbo waaweyn uu ii yeelay bashaadkan hareeruhu wuxuu ku leeyahay shushub waaweyn soo kaasa shantadeedii yareydna waa soo qaatay peace and love baa idin lahaa markaas waa soo baxay waxa waaye odaygii reerkaas soo aftuubay waxaan dhahay shopping baa u socdaay kaale i wado mootadaada igu kaxee kadib mootadiisii uu igu kaxeeyay anigana waa kaasa video baa idin duubay anoo mootada saaran waa kaasa haddana wadadii aan ku qabtay wadada waxa waaye saan wadaagta xaafadaheena waaye soo waxa waaye stoorka amba dukaanka u socda cabaar yar buu noo jiraa ilaa 15 daqiiqadood waa kana magaciisa waxaa la dhahaa Westside waxa waaye dukaankii hadda aan imaanay oo aan soo gaadhnay soo waa kaasa dukaankii hadda soo galnay dukaankan waxa waaye dhar asturan oo dhar muslima ma galo Westside baaba la dhahaaba ma ka helaysid toobab iyo wax asturan laakiin dhar iyo shandada iyo alaabo kale waa ka heli iyo maxaa la dhahay home decoration-kaba soo kaasa markaa gudaha usoo gashay saan uu eegyahay jeans iyo waxa waaye maxaa la dhahay garamaantaas iyo waxyaabahaas iyo kabaha iyo adduunkaas ayaa yaala wax asturan ma yaalaan dhar muslim ma yaalaan soo markii ugu horreysay soo galayba qaybta caruurtun baan saa u fiiriyay saada u fiiriyay haba fiirin lahaydaaba 100 dhar oo qurux badan oo ilmo yaryar aan ku arkay weliba shaar kan yarba aad iyo aad ii soo jiitay kadib meeshii aan hogoguf ku yiri shaarkii aan soo qaatay waxaan taaganahay ilow shaarka waan soo qaadanaya xitaa toobab yaryar oo hablood baa meesha yaalay kaba yaryar oo shidan innaba caadi ma ahayn baa ku dhahay ciyaalka yaryar dharkooda usoo arkay quruxda badnaa soo waxa waaye shaarkii aan soo qaatay kadibna qaybtan kabahan imid kabaan ka raadsanayay kaba qurux badan oo qanciyaba waa ka waayayba waana kaba qaaliya oo lacagtoodu waa qaali quruxna malahan iyo qaayatoona sanadkan dhar la-aan kaba la-aan qash yacni wax fiican oo qurux badan ma yaalo oo tayo leh xitaa haday qaali yihiin oo lacagta waa u huri lahaaba laakiin maba ay qancininba hadda maanta dhan kabiyaan dhex wareegayay kabaha yaryar oo guriga lagu joogo buushka ah baaba wax indhahaygu soo jiitay aan arkay hadda waa meesha dhan intaa leeg baa kaba ay qanciyay aan kasoo waayay soo laba nooc baa yaala cadaan iyo madow baa yaala cadaanka iyo madowgii aan soo kala dooranayay kabihii cadaanka ay qanciyay laakiin dadka waxay ugu dhaheen madowga lugtaada ku qurux badan tahay ninka meesha jooggaasa igu yiri kadibna tii madowga baan iska soo qaatay laba qof baa isku raacay madowga ku qurux badan tahay madowgii aan soo qaatay haddana qaybta decoration-ka iyo waxyaabahaasaan yimaaday kadibna waxaan ka helay galal yaryar oo birkimo oo aad iyo aad u qurux badan waxa waaye una harqad wanaagsan oo waa birkimooyinka decoration-ka ah waa noocan cadaanka ah baan ka helay soo 3 xabadood baan kasoo qaatay 3 gal birkimo yaryar baan kasoo qaatay birkimo yaryar oo quruxda badan laan kasoo helo wax kale kasoo heli waayo decoration soo kaasa haddana anoo halkan dhex wareegaya waxaan soo helay surwaalkan yar waa surwaal cagabalaq markaad xirantahay waxaa la moodaa inuu xafaaf u egyahay laakiin dhexdu ka kala qaybsan ma ujeedaan waa surwaal cagabalaq surwaalka yar baan kasoo helay laakiin si wax yar oo igu dhaganaa waan ka waayay size weyn waan iska soo qaatay surwaalka yarka ana kadibna qaybta shandadii waxaas imaaday waa kana shandada badan baa yaalay tan yar madow ay qancisay soo shandada yar madow baan kasoo qaatay adayaan weyn meeshaan waxaan dhex joogay muddo saacad iyo badh meelahaas galabnimadna shoppingka waa soo baxay ana waxa ahaa qofta kaliya oo markay ciid shopping sameysanayso xilliga afurka ku beegataanahay oo sameesho jam ahayn oo dadka dhan ay inta sooman yihiin ay wada tabcan yihiin kuna ay afur sameysanayaan xilligaas baan waxa waaye in ciid shoppingkeedan u baxo waxay ayaga qabataaba soo kaasa baxdan baa soo qaatay lacagtii aan soo bixiyay warqadan lacagta ku soo bixiyay inuu igu yiri qaado tii aan soo qaatay waa kaasa shoppingki meeshaan waa ka dhamaystay alaab badan aan kasoo gatay kadibna waxa waaye waa soo baxnay afurkii 5 daqiiqo ka dhinayd oo soo baxnay maqaayad yar waxaan imaanay halkaana oo la dhaho waafal tanaa rabnaa inaan maanta inaan galabta amba caawa aan ka afurno tii aan soo gaarnay waafal house baa la dhahaa gudaha soo galnay menu-giyana loo keenay cuntooyinka quruxda badan leh macaan bay haysaa
waa kaasa waxaa waaye cuntaan ka dalbanay iyo macmacaan iyo sharaab iyo waxyaabahaas. waa kana cuntadiina loo keenay. cuntadan chicken anchilitis baa la dhahaa, kaasina waa waffle. halkaana chips iyo ii taalo. anchilidada saana u eg tahay waa rooti tortile oo dhexda khudrad iyo chicken iyo adduun lagaga guriyo cheese. kanina waa waffle kaas oo macaan yahay, ice cream iyo moos iyo syrup iyo waxbaa lagu soo kordaadiyey. tanna waa chips, mrs chips baa la dhahaa. chips la-aantii waxaa waaye wax ma cuno. kana waa sharaabkeeni. waxaa waaye 3 cisho ugu dambeysay shopping baa ku jiray. haddii aad rabtaan dharka ciideeda aan usoo gata shoppingka ciideeda waa iisoo sheegi kartaan, waa idiin soo gelinaa video baa idinka soo duubaa insha Allah. haddaa rabtaan waaye commentiga iigu soo sheeg fadlan. waa kaasa cuntadeeni asaga enjoy gareynay. dee videoga intana waxa waaye aan kusoo eekeyna cuntadii aan isku dhuuq ku cunaaya. xabada chicken anchilidada lama dhameyn karaayo, haafkaaba iga badanba. waxaa waaye wada borotiin iyo wada khudrad waaye. haafkaasaan soo googoostay, chibisna waan soo qaatay. intana isku cunayo koobkeyga sharaabka ah. 4 euro aad iyo aad wanaagsan buu ahaa. waa kaasa videoga intaas kusoo dhamaaday. waxaan leeyahay maca salaama, bye bye.